السلام عليكم خيرت dhamaantiin salaamay waa walaalkii maxamed jaamac suuqyada caalamka maxaynu ku filan karnaa ayaamaha soo socda waxyaabo fara badan ayaan doonaya insha Allah tacaala inaan la share gareeyo oo bull market ba aynu ku sii jiraynaa bear market ayaan nagu soo wajahan waxa loo baahay in taxadirka aynu badano insha Allah tacaala waxyaabaha iyo waxyaabo fara badan aynu ku falanqeyn doonaa maanta tayna bilaabina waxaan ku codsanayaa like iyo subscribe channel loo saar hadda nagu cusub tahay insha Allah tacaala waxaan kaga hadlanaa channelka wax walba oo ku saabsan suuqyada caalamka gaar ahaan cryptocurrency-ga haddaad xiisaynaysid inaad baratid cryptocurrency iyo qaabka looga faa'iidaysto hadday tahay fundamentalkeeda iyo technical analysiskeeda bil walba waxaan bixinaa course ku saabsan fundamentalka iyo technicalka waxaad nagala soo xidhiiri kartaan nambarada aad ku aragtaan iyo telegramkayga soo dhawaada bilowga video waxaan kaga hadlay ma bull market baan kusii jiranaa weli mise bear market ayaa inoo bilaabmi doona xaqiiqatan sida aad sawirka kaga aragtaan thumbnailka waxay u badantay suuqu inuu galo marxalad ah bear market amba soo daato taana sababta ugu horeysa waxaa ka mid ah hukuumadda waddanka Mareykanka oo doonaysa inay iska iibiso 8200 oo bitcoin taas oo ay ka xireen website-kii caanka ahaa ee waxyaabaha illegalka ah ku shaqeyn jiray haday tahay drugska iyo waxyaabaha lamida website-ka markay xireen tirada bitcoin-ka ah ay ka xireen imikana waxay doonayaan inay ku soo daadiyaan suuqa cryptocurrency-ga arrintaasna hadday dhacdo dabcan waqtiga ay ku soo daadinayaan lama garanayo goorta iska iibinayaan lama garanayo laakiin hadday ku soo daadiyaan suuqa waa arrin saameyn karta bitcoin-ka iyo altcoins-ka guud ahaan chartkan waxaan ku arkaynaa federal banka amba banka dhexe waddanka Mareykanka inuu iska iibinayo hantida uu haysto portfolio-hiisa ku jirta marka muddada soo socota waxyaabo far badan oo asset-kooda ka mid ah iska iibiyaan ayaa suurtagala maadaama marxalad aynu ku jirna ah quantitative tightening amba ah in suuqa cunaha lagu dhago oo lacagta suuqa dib looga soo celiyo sababta kale ee suuqyada soo daadin karta waxay ku xidhan tahay natiijadaha soo baxaya week dambe gaar ahaan shirkadaha waaweyn sida Microsoft, Google weekan waxaanu arkaynay Tesla iyo Netflix markay natiijadeedu ay soo baxeen in xaqiiqatan labadaas sahmi ay daateen taasoo kale inay dhacdo ayaa laga baqayaa week dambe waxa jirta arrin aad iyo aad muhiima taasoo banka dhexe waddanka Mareykanka odayga haysta Jerome Powell hadli doono mid kalena waxay shaacin doonaan sicirka faa'iidada ay ku darayaan ee interest rate-ka sida chart-kan halkan aan ku aragno khubarada suuqa waxay u badanayaan in 0.25% lagu daro haddii lagu darana suuqyada waa u xumaanaysaa oo waxaynu arkaynaa suuqyadaas daata marka week aad iyo aad muhiima ayaynu sugayaa insha Allah tacaala waxaan ugu talinayaa taxadurka in la badiyo kale waxaanu arkaynaa reportka ka soo baxay banka JP Morgan in marayno marxaladihii la midka ahaa covidkii oo suuqu maartay aad loo iibsaday taana hadda jeer markay dhacdo suuqyada waa saamaysaa mar walba suuqu waa soo daataa taariikhi ahaan marka laga hadlayo suuqyada hadda jeer pre-election waxa la yidhaahdo amba intikhaabadka waddanka Mareykanka ka hor iyo sideedaba bilooyinka kale ah July nihaayaddeeda iyo August inta badan suuqyadu waa daataan taasna hadda jeer waxay ku beegantahay dadka retailerska ee caadiga ah ee dadka hantida haysta inta badan waqtiyada waxay ku maqan yihiin fasaxi ay ku maqan yihiin taas way ban xitaa waaragna suuqyada caalamka labada bilood aan sheegay ina volume-ka iyo lacagtu ay aad u yar tahay marka laga yaabaa in dadku lacagahooda ay la baxaan oo fasaxi ay ku tagaan hadaan isla eegno fear and greed-ka damca iyo cabsida suuqa sidaan ku arkayna chart-ka ka cryptocurrency wuxuu marayaa dhexdhexaad oo weli waxba kama jiraan laakiin kan kale stock haddaynu isla eegno wuxuu marayaa 82 taana waxaynu tusayaa in damca uu ku badan yahay dhinaca stocka taasina waxa weeye arrin saacidi karta inuu soo daato stock marketku sida kale jirta waxay ku saabsan tahay dahabka la arkayo imaka in si wala loo iibsanayo gaar ahaan labadii week u dambeeyay talo ma waxa jira wax dhacaya waxaasna talo ma ku saabsan yihiin arrintan ka hadlay ayaan tidweed ee ahayd commercial real estate-ka oo cimaaradaha shirkadaha ay kristaan oo loans amba amahay ka qaataan baananka balan qaadayna inay soo celiyaan lacagtaasoo imika aynu arkayno in shirkadaha qaarkood ay marxalad ah default ay galeen oo aanay soo celin karin lacagta taasina runtii daqad waxay saaraysaa baananka gaar ahaan baananka yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah kuwa waaweyn inay saamayso waa macquul talow sababta dahabka loo iibsanayay labada week u dambeeyay ay xiriir la leedahay mise waa wax kale insha Allah tacaala bilaha soo socda aynu ogaan doonaa arrinka saameynaya inuu dahabka xitaa la iibsado sida xitaa graafkaynu ku arkayno mar walba oo dahabka si waalan loo iibsado wax ayaa dhaca dahabkana sidoo noqon mar walba ay wax jiraan ama mashaakil ayaa iibsadka dahabka u bata fix laga hadlayo waxa hadda jeer lagu cabiraa fixka dhaqdhaqaaqa suuqa iyo volatility-ga chartkan ku aragno wuxuu marayaa imika marxaladii 2008 ahayd barigii dhaqaal burburka caalamka uu ka dhacay imakana xitaa su'aalo fara badan ayaa iqtisaadiyiinta caalamka isweydiinayaan oo ah maadaama fixku uu marayo levelka ma wax aynan ogeyn baa dhici kara talabo badanayana waxay tahay
ina wadanka Mareykanka gebi ahaan uu galo waxa la yiraahdo recession ama dhaqaale burbur arrintaasna runtii warwar ay gelinaysaa suuqyada caalamka. Waxaan u maleeyaa intaasi inay nagu filan tahay dhinaca stock marketka ee waxyaabaha dhacaya aynu ka hadalnay. Haddaynu ugu dubno dhinaca kale ee cryptocurrency-ga waxaanu arkaynaa wiigii hore in Ripple XRP keeskii ka badisay SEC-da taasna waxa leeyahay mujtamaca cryptocurrency-ga hambalyo maasha Allah dhaqaaqyo aad iyo aad fara badan lacag fara badan oo laga sameeyay hadday tahay XRP iyo coinka xiriirka la leh ee XLM oo mar walba XRP-du ay dhaqaaqdo oo asna dhaqaaqo marka insha Allah tacaala labada coin isha ku haya retracement-kooda iyo soo laabashadooda mar dambana insha Allah tacaala waan ka faadi doonaa insha Allah khayrta imka waxaan ku soo gabagabeynayaa taxliisha Bitcoin-ka USDT-da iyo Bitcoin dominance-ka lacagta guud ee suuqan insha Allah tacaala isla eegi doonaa haddii isla eegno Bitcoin-ka waxaan arkaynaa saddexdii week ee u dambeeyay inuu ahaa bearish oo candlada halka aan ku aragnaa ay yihiin mid ah bearish weekana imka waxa ka haray labada cisho insha Allah tacaala qaabku ku xidhmo iyo sida uu eeyahay insha Allah tacaala waan isla eegnaa takala waxaan ku arkaynaa RSI-da inuu ka dhacayo halkaas divergence waxa looga jeedaa inuu khilaaf price-ka ahaan Bitcoin-ka inay mid iskhilaafsa ay tahay taasina waxay ka mid tahay calaamadaha laga garto inuu soo daadanayo Bitcoin-ku hadduu soo daato laga yaabo in lagu soo celiyo ilaa iyo 25,000 waana macquul inuu tago meelo ka hooseeya 25,000ka taasi waxa weeye bearish scenario taana waynu badinaa haddii areada uu jabiyana gaar ahaan areada ah 32,000ka waxaan u maleynayaa inuu sii soconayo insha Allah tacaala 4 hour-ka haddaynu degno waxaanu arkaynaa Bitcoin-ku inuu ku jiro imika distribution phase haddii jeer Wyckoff theory-ga marka laga hadlayna waxa weeye mid ay u badan tahay inuu suuqu uu soo daato insha Allah tacaala qaab ku socdo iyo meesha uu gaaro Bitcoin-kuna waynu la socon doonaa weekly-ga haddaynu ka eegnana overall ahaana dhaqaaqan imika halkan ka soo dhacay waxaanu arkaynaa inuu ahaa mid xoogan oo bearish oo suuqa sell xoogan lagu hayay imika intan aynu aragnana inta kale imika bullishka ana mar horena waan ka hadlay inay noqoto correction phase ama waji correction oo sidaa lagu soo daadiyo khaasatan imika waxaanu arkaynaa in areada 0.5 Fibonacci level afarta week imika lagu hayay waana mid xaqiiqatan inaan si wanaagsan ula socono xaaladda Bitcoin-ka haddaynu isla eegno USDT-da haymanada ay suuqa ku leedahay waxaanu arkaynaa June nihayadeeda ilaa August in lacagtu mar walba suuqa ay ka baxdo taana waxaan ku arkaynaa sida halkan chart-kan ku aragno 2019kii 2020kii 2022kii imikana 2023ga in taasoo kale ay dhacdo mar walbana history-ga waxaanu ku baranaa wixii hore u dhacay in mar dambe ay dhacaan lacagta guud ee suuqa haddaba haddaynu isla eegno iyadana mar walba waxaan arkaynaa August bidayada August nihayada July in lacagta suuqa ay ka baxdo sida halkan 18kii 19kii 2022gii iyo 2023ga in lacagtu ay ka baxdo halkan ayaa macquula khaasatan halkan saynu ku arkayno weekly-ga waxay sameynaysaa double top taana waxay xaqiiqatan ay waafaqaysaa Bitcoin-ka oo 4 week imaka areada u dhaxaysa 30,000ka iyo 31,000ka aan dhaafi karin intaas maantiin yahay khayrta waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan aad asxaabtiina aad la wadaagtaan insha Allah tacaala waxaan doonayaa inaan sameeyo dhawaan giveaway ku saabsan koorsiga bisha August channelkana si wanaagsan ugu xidhnaada asxaabtaadana muuqaalkan gaarsii si ay iyaguna uga faa'iideystaan fursadda giveaway-da laga yaabo nasiibkooda inuu noqdo inay iyagu ku badiyaan oo halka koorsiga technical analysis-ka ee bisha dambe aan qabanayo ay ugu guuleystaan khayr badan baan idin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh